السلام عليكم aad baa inoo wada salaamay waa macallin maxamed cabdi macalinka luqadda faransiiska dhiga language and computer college hargeysa xaggan waxaan aad uga salaamayaa ardayda qiimaha iyo qaayaha leh ee ku xiran college-ka language and computer college in aad xaggan uga salaamayaa oo macalinkiinii macallin maxamed cabdi in badan oo aragtay oo xagga live-ka iga aragtay way jirtaa in aan maanta isku horeyn doonaana way jirtaa marka dhammaantiin aad baa inoo wada salaamayaa soo dhawaada معلومات waxaan ku haynaa dhow su'aalo سودا jaashin ardayda u joogto اهلا وسهلا هذا السؤال شو تحي ثم جوابك كدغنا waadka اي imisa ardayda ku barta luqadda faransiiska ان ما شاء الله امك ان قيبتا لغه فرنسيسكا waxay effective hayd oo socotay muddo imika aan 6 ilaa 7 bilooda in marka in ardaydu laba isku jiraan qaar buuga koowaad dhigta iyo qaar buuga labaad dhigta marka labada marka la isku daro waxay isku noqonayaan ilaa 4 ilaa 500 arday ay isku noqonayaan oo luqadda faransiiska dhigta ma sha Allah marka macallin lahaan xaal awood saarta marka barasa ardayda luqadda faransiiska okay ota in college-keenu language and computer college in wuxuu leeyahay wax la motto in wuxuu leeyahay ligne directrice wax la yiraahdo in xoog waxaan saaraa ama qofku ha barto faransiis Soomaali Ingiriisi Carabi xoog waxaan saaraa ku hadalka luqadda aynu xoog saaraa marka in luqadda faransiiska ardayda bartaa waa arday barta ku hadalka luqadda faransiiska marka xaggaasanu anagu u badannahay in college ahaan inuu ardaygu maalintu soo galo iyo maalintu ka baxayo farq weyn oo xagii ku hadalka ah uu u dhaxeeyo uu qofku noqdo qof luqadii fahmi kara in haddii su'aal la weydiiyo ka jawaabi kara nolol maalmeedkiisa ku maamuli kara waa inuu noqdaa qofku maalintu college ka baxayo taasana xooga saaraa marka ardaydu waxay bartaan ku hadalka macna wax ka warantaa teamka oo shaqaysan language and computer college hadaysa shaqaale ahaan iyo maamul ahaanba okay in anoo markan shaqada soo galay waxaan u imid nota shaqaale aad u hufan in oo macallimiina in macalinka waxa lagu yaqaanaa inuu noqdo qof in xaqii aqoontii xaqii edebtii in xaqii dad la dhaqankaba in ku wanaagsan waayo macalinku waxa weeyaan waa tusaale waa qofkii lagaga daynayay in habdhaqankiisa lagaga daynayay in socodkiisa lagaga daynayay hadalkiisa lagaga daynayay weeyaan in macalinku marka waxaan u imid in macallimiin aad u wanaagsan in oo shaqada si fiican igu soo dhaweeyay in bilowgiina in wixii aan u baahnaa in aad igu fududeeyay marka aad ayay in macallimiintu u wanaagsan in ma sha Allah in qaybta haddaan soo galo in maamulka in maamul aad u wanaagsan oo macallimiinta iyo shaqaalaha kaleba in xiriirkooda u wanaagsan yahay in tilmaamtooda iyo toosintooda iyo xushoogoodana uu aad u hufan yahay in ayay yihiin ma sha Allah ilaahay ha wada barakayo macna ma sheegtaa ka waran ardayda ka waran weli yani kala kulanta ardayda waxyaalo ka waraysa ardayda ka waran sayyihiin fahankooda asla qofsigooda kalaasida weli ma la kulanta arday amba weli ma la kulanta arday ka yaabiyay amba wax yaro magaranaysa faniya amba wax doona weli ka yaabiyay markaa ma kala si fiican ota in luqadda aynu baranaynaa in waa luqadda faransiiska wadankan aynu joognana maaha in wadankii luqadda in lagaga hadli jiray ama dhaqaniyan u lahaa in maaha marka in ardayda barataa laba isugu jirtaa qof jecel in barashada luqadda iyo qof matala in dibadda jooga oo jecel inuu luqadii hooyo ugu macnayn kara inuu in wax u dhigo labadaas isugu jiraan in waana dad u helan in barashada in luqadda waayo iyaga soo wala diiwaan galiyay iyaga doortay iyaga yiri waxaan jecel lahay inaanu barano luqadda faransiiska marka aad bay ugu heliyeen in dhamaantood in haddaan xaggii su'aasha qaybtii labaad ee haddii arday ama qof xagga waxbarashada ka yaabiyay ayayna su'aashu ahayd waxaa jira in arday muddo 3 bilooda wuxuu joogaa waxa weeyaan in xagga bariga waa reer Boosaas weeyaan muddo 3 bilooda ayuu luqadii faransiiska from zero ilaa imika uu
kuugu sheekayn karo ayuu ka marayaa markaas ardaygaas wuxuu ahaa adarkii maasha allah xagga aqoonta iyo fahanka ugu wanaagsanaa maasha allah weli ka hadda waan hayaa in sawiradiisii iyo cajaladiisii uu soo diray waan u diray ardayda kale wuxuu una u yahay dhiirigelin waxaan ku idhahdaa ardayga maalintuu soo gelayay kelmad kama aqoon luqadda faransiiska maanta waa iniga arkaya marka wuxuu noqdayba dhiirigelin ay ardayda kale ay eegtaan oo ay kaga daydaan su-aasha waxay noqon laga soo helay inta waa shaqaysaan maxaa kala siinay su-aasha lana noqonaysa ardayda aad u dhigto maxaa kala siinay okay bismillah tiimka ama ekiibka af français tiimka ekiib baa la dhahdaa ekiibka aan wada shaqeyno ama kolleega aan wada shaqeyno ama collaboratorada aan wada shaqeyno intaba waxa weeyaan shaqaalihii bay matalayaan waxaan siin lahaa waxa weeyaan shaqo wanaag inaan isku ogaano shaqo wanaag iyo hufnaan iyo helanaan saddexdaasi ayaan isku ognahay oo taladan siin waxa weeyaan saddexdaa ayaan isku ogaano ardaydan waxaan siinayaa talada waxa weeyaan casharadu say yihiin arday walba ha uga soo baxo cashar yaanu kuu gaarin cashar yaanu kuu gaarin taasi waxay muujinaysaa saad uga helan tahay luqadda barashadeeda luqaddu marnaba ma fududa waxay kaaga baahan tahay juhdi waxay kaaga baahan tahay dadaal waxay kaaga baahan tahay waqti marka ardaygu waa inuu saddexdaaba diyaar la yahay hadduu intaa diyaar la noqdo language and computer college-na waxay ugu ballan qaadaysaa inuu noqdo qof luqadii bartay oo himiladii uu luqadda ka lahaa ka gaadhay adaa mudan khayr baan isku ognay